madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu xoojin doono weerarada ka dhana Iran. Trump ayaa u muuqday inuusan dhag jalaq u siin cadaadiska uga imaanaya dhinacyada kala duwan oo ah inuu joojiyo dagaalka ka dhanka ah Iran. Digniintan ayaa timi saacado yar kadib markii tiro ka mid ah khubarada sharciga caalamiga ah ay soo saareen warqad ay kaga digayaan xadgudubyo halis oo ka dhana sharciga oo la sheegay inay geysteen Mareykanka, Israa'iil iyo Iran. khubaradu waxay walaac ka muujiyeen hadallada hanjabaadda ee Mr. Trump intuu ololuhu socday. Madaxweynaha ayaa mar kale ku hanjabay inuu weerari doono kaabayaasha dhaqaalaha Iran sida burburinta buundooyinka iyo xarumaha korontada kuwaas oo loo arki karo dambiyo dagaal. Khamiistii Mareykanka iyo Israa'iil waxay weerareen buundo dhismo ku socdo iyo sidoo kale xarun taariikhi ah oo soo saarta daawooyinka talaalada. Saacado ka hor Donald Trump ayaa muuqaal laga duubay weerarkii Mareykanka ee buundada soo dhigay baraha bulshada isagoo ku qoray waa waqtigii Iran ay heshiis gaari lahayd inta ay goor tahay. dhanka kale labada warshadood ee birta ee ugu weyn Iran ayaa la xidhay. warshadan ayaa albaabka loo laabay kadib dhowr jeer oo duqeymo cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Israa'iil sida ay sheegeen shirkadaha gacanta ku haya. qiyaasteena bilowga ah waxay tahay in dib u bilaabista cutubyadan ay qaadan doonto ugu yaraan 6 bilood iyo ilaa 1 sano ayuu yiri Mahram Babkin oo ah ku-xigeenka madaxa howlgallada ee shirkadda birta Khuzestan ee koonfur galbeed Iran iyadoo ay soo xigatay warbaahinta Iran. shirkadda Mubarak Steel Company waxay sheegtay in khadadka wax soo saarka ee bartamaha dalka gabi ahaanba la xidhay kadib weeraradii tirada badnaa ee ay geysteen Mareykanka iyo Israa'iil.